waxaan rabaa inaan u soo jeediyo fanka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. fanka Soomaaliyeed ma jeclin inuu ka mid noqdo dhaqamada xun ee wadanka ka dhacaya. ma jeclin inuu ku soo biiro waxyaabaha dhinaca anshaxa oo ku saabsan oo aan hagaagsaneyn run ahaantii. waayahan dambe waxaa soo baxay dad fanaaniin iska dhigaya oon fankii waxbana ka garanaynin, cod ahaan aan cod lahayn, suugaan ahaan aan suugaan lahayn, erayo aan erayo lahayn, muuq ahaan aan muuq lahayn, golo joog aan lahayn, garab istaag lahayn, wax ay leeyihiin lama arko. haddana maara loogala yahay inay wax duubduubaan qashina ummadana la hor yimaadeen. dadka Soomaaliyeedna sida aad ogtihiin waa dad war ku noola, shaaciradana waa ka helaan. marka mushkiladda jirta waxa weeye qofkii wixiisi waa shaaciro, dadkiina waa ku qoslayaan, wuxuu u maleeyaa marka inuu libaax baxay oo banaanka yaal leeyahay. waxaan idinka codsanayaa marka fanaaniinta Soomaaliyeed ka codsanayaa arrimaha noocaasa in laga wacyi geliyo. dadka weliba heesaaga iska dhigaya oo u daran yihiin, yacni erayama samaynayaan oo eraygi loogu xilan maayo, cod loogu xilan maayo, muuqaal loogu xilan maayo, wax fariin oo gudbinaya lama arko ilaa aan anshaxo aan ka ahayn. marka bacalwaan aad u mahadsan tahay. marka arrimahaas haddaan qayb ka noqono waxaa la yiri gacantii daahiraha wax daahirisa. war annagii haddaan malaakuus oo dhan sheegayno oo kuwa muxuu ahay fanaaniin sheeganaya oo ay qashin oo dhan sheegayaan, dadkiina ay waqti siinayaanba, dadku waxay rabaan inay ku qoslaan. dadkii waxay rabaan inay wixii ku qoslaan iska rabaan. marka yacni qosolkiina macno ma samaynayo. xilligan wax lagu qoslo uma baahnin. waxaan u baahannahay fariimo muhiima oo bulshada muxuu ahaa niyad geliya.